Turkigu waxa uu keenay inay iskaashi xoogan ka sameeyaan dhanka amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Iskaashiyadaas oo keenay inay Turkigu ay Soomaaliya ka furaan xarun tababar oo lagu horumarinayo tayada ciidanka Soomaaliya. Sebteembar 2017 ayaan xariga laga jaray xarunta tababarka ciidamada ee Turkisom si loo gaaro higsiga qaranka ee xasilinta dalka. ayay kuliyaddaanu ku leedahay jiritaanka dhismaha ciidanka hadda lagu nastay dalkeenu leeyahay qaybta ugu muhiimsan ee ay ka qaateen waxay tahay waxa laga garan karaa maanta ciidankeena doorka uu ka qaatay dagaalanka argagixisada. runtii waa taariikh baldahaba leh, waa taariikh aan la inkiri karin, waa taariikh ummad u gasho si u wanaagsaneeday marka runta laga hadlo. xarunta Turkisom oo ah mid si casri ah loo dhisay lana qorsheynayo inay si baaxad leh u soo saari doonto saraakiil iyo ciidan tayo sare leh, waxay dalkeena ku soo kordhisay xirfad iyo tayo aad u heer sareysa. dhismaha xaruntan iyo qalabaynteedaba waxa lagu bixiyay malaayiin dollar, taasina waxay ka turjumaysaa xiriirka adag ee labada dal u dhaxeeya. waxaan u mahadcelinayaa dowladda saaxiibaha nahay waalaha nahay Turkiga. sidaad ogtihiin dowladda Turkiga iyo Soomaaliya waxay leeyihiin saaxiibtinimo iyo xiriir dheer oo ka badan boqolaal sano. waxaan rajeynayaa insha Allah xiriirkaas inuu sii xoogsado sanadaha soo socda iyo qarniyada soo socda insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inay noo soo baxaan dhalinyaro 2 sano ku jiray academy oo bartay cilmiga militariga nooc walba leh iyo saraakiil xigeenno. waxaad ka heli kartaa oo kaliya saaxiib iyo walaal yaad ka heli kartaa.